war ilaahan idinku dhaarshiye qofka maanta sheekh Kenyawi ilaahay qiraasiye yiri alfanaan Kenyawi intuu muuqaal yar dul saaray uu yiri rap dul saaray alfanaan Kenyawi yiri ilaahan kugu dhaarshiye qofkaas ka hor ilaahan kugu dhaarshiye qofkaan waxaan been ka sheegay ilaahay u naxariistay marxuumka ajakis oo Soomaalida inta badan maanta sharafta leh yiraahdaan xitaa aab ixtiraam meel ka gaarin aab yiraahdaan aab ajakis yiraahdo dadkii aniga maanta isoo dhintay oo teetalka xun ama waxyaabaha qoraalka xun ka soo sheegay ama beenta ka sheegay ku gafay ma wax khaldana ka sheegani ma gabdhahaas sharafta leh oo maanta baara iyo gabadhan kale ay qarar u qabo waxa xaliyada aan ka hadlay ma wax khaldana macna inaan iraahdo gabdhaha oo ku gaftiini faraha ka qaada waxa soo kalena challenge ha ku ciyaarina faraha ka qaada markaan leeyahay ma wax ilaahay idinku dhaarsho idinkaan idin weydiiyay aniga aan been ku sheegayba mise wax khaldana ku hadlay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا قالين جعلنا لك أدنى داوس ومان بو أفشل أنون وولالك مان بو إسكون قدنا يكسن وولي بحيسي حماسة كوني قال له مقال كان مقال كي هراء وكنت بني هاي الحمد لله هرتو وآد هذا أمهات سنتيهين سومالي ذا ودت أنت بدن دتك كتاجرة وناجا وجيران دتك حمانت كتاجرة لكن ما بدنا وحاك بدن برسنتج عام وحاك بدن دتك وناجا دتك كتاجرة كبدن وأنا أركي مقالك ما شاء الله ماشي لقربي واد جرسين ثانك يو آد أنه إذا كجمع هذا علينا أنت وناجا يا سماها جعل ما شاء الله نيو هو waxaan rabaa aawa in aan ka hadlo ama aan wax ka iraahdo muuqaalkan ka horeeyay oo aan caqabado badan kala kulmay iyo maxaa la yiraahdaa caqabado badan iga soo gaareen iyo leeyahay wadna aflagadeysay way adiga dad badan oo caana oo la yaqaano aan soo gudbi kara hadaan soo gudbiyana aawada taqaaniin oo aan idhahay maxaa la yiraahdaa wadnaga hadashay way aad naga hadashay way aad afaareen way aan noo soo dabaysanaysaa cidna ma aan soo dabaysanani cidna ma aan soo gardaraysan cidna aan kuma aanan gafin muuqaalka sidii maxna aad ka wada arkayseen waxaan arkay in macnaha luuqa laga soo waco like Instagram kiiyo kale WhatsApp kiiyo kale telefonkiiga private ka callka caadiga kale waan arkay intaba waan arkay iyadoo leeyahay way aad noo soo hadashay way aad maxaa la yiraahdaa teetaladeena wax uga soo sheegtay anaga teetalka macnaa aan wax ku soo qoreyno ama ciwaanada anaga markaan soo muuqaalada soo gudbinayno waxyaabaha aan ku soo qoreyno way aad uga soo hadlaysaa saaxa ku dhahay waxweyn kuma wadhin waxa dhahay aniga cidna ma aanan ataagin cidna ma aanan soo hadal qaadin cidna kuma aanan dhawaaqin magaciisa far iyo meesha isbugtan iyada istaqaano kulli haddana waan leeyahay aniga wax xunna mar walba ka hadlaa anigu aanan uga hadlaynin si private aan qofna uu تاجين سي بابليغا uga hadlaa ani ma fahanti telefonka macnaha aad iga soo wixaysidna ani macnaheeda ma ahan ani inaan marka hore muuqaalkan ani soo duubay muuqaalkan kori markaan soo duubay igama ahayn haduu waxba kaaga imaanay runtii ka hadashay iyo runta daakaad dhibaato kaaga imaanay uguma aanan soo duubin ma fahanti laakiin sidii jirtay ama wacdiga markaas jiray ama wicdiga maxaa la yiraahdaa barnaamijka markaas taagnaa aan ka hadlaayay haddii ku dhibto adeeg ku taala iska bedel wax ka bedel dib isugu noqo ma ahan in aan soo bacid aniga ma si private aan soo raadisid aad luqad tagale soo raadisid way tira ana horta okay ka gudub ani minaha in aad qofkaas ama qof dadka isku sifaada ma rabo laakiin aqliyan waxa la rabay in aad wax iska bedesho ma ahan aqli xumadaada in aniga adiga ay soo raadisid ma aysan ahayn haddii la soo hadlaysidna thank you brother wax iga maqnaa ii sheegtay waad ku mahadsantahay inaad tiraahdo aqli xumadaada qof marxuum ah waxa waaye aad waxa ka raadisay arsaaq ka raadisay qof wadaad aad macnaha aad ku gaftay wax been aad soo sheegtay aad umada u soo gudbisay dad aad soo caysay ama gabdho aad maxaa la yiraahdaa kula dhashay ama aad qabtay oo aad maxaa la yiraahdaa qabtay aad soo caysay aad ku soo gaftay xumaana ka soo sheegtay waa ku sheegay walaalo waxa ku waxaan qalad waa ceebna waay sharaftaada iyo sumcadaada iyo dadnimadaada uma roono dhigaha dadka inay ku dhacaan uma roono ma fahanti muuqaalada hadda qaar aan soo gudbinina jirto laakiin gabar sharaf leh maanta oo youtuberad oo sharaf leh akhlaaq leh dhaqan leh diin leh aad caysay kuba soo sheegin ani kuma maana soo gudbin waxaad ku tiri xumaanta aad u sheegtay kuma aanan soo gudbin ani oo ma aanan dhihin maxaa la yiraahdaa hebel waa kan muuqaalkiisa ila fiirsada ma aanan dhihin way ani adaa ay soo leedahay doqonnimadaada dadka waxyaabaha u soo gudbinaysid kaama aqli yar baraada waa dad adiga ka aqli badan ka maskax badan ka aqoon badan waa ma fahanti hase ahaato ani macnaha meesha ani iga soo ataagaysid ay leedahay baraada waxa waaye way uga hadlay iyo way ay leedahay kulomeysan habooneen kumooyeen isku qurux badneen
muuqaalkii ugu horeeyay xalay waxaan rabay in aan maxaa la yiraahdaa meeshaas aan ugu raaligeliyo aan uga bixiyo labada gabdhoodba labada nin oo Cadnaan Moodan iyo Carlo iyo maxaa la yiraahdaa gabdhayaasha ay kala qabeen Cadnaan gabadh uu qabay kala tageen wiligeena xawaayad Soomaali hadii la isfahmi waayo la kala tagi jiray Ardullahi waasacan ana meesha dadka isfahmaan waa la kala tagaa ma sha Allah gabaas walaasha sharafta leh iyo gabadha Ayub oo Carlo uu qabo oo sharafta leh labadaba meeshaan raaligilin maadaama anaga dhalinyaro Soomaaliyeed dadka ay qalad ka galeen wiil Soomaaliyeed yihiin raalli ah dad sharaf leh tihiin muuqaaladii macnaha ay lagu aflagaadeynayna ma aanan soo qaadanin waxaan u soo qaadan waayena waxa ahayd macnaha in aan aanan maadaama ay qaldameen anaga in aan si caadiya wanaag aan ugu sheegno aanan gabdhihii wixii xumaantii ku dhaheen in aanan soo qaadanin gabadhaas YouTuberad waaye gabadha Cadnaan furaayay baara la yiraahdaa waa gabar YouTuberada Kenya ku nooshahay saan filaayo baara la yiraahdaa walaashay baaro raalgelintaas macnaha waxa waaye ummadda Soomaaliyeed oo dhan inta wanaaga jecel ama inta wanaaga haysa oo waxa waaye wanaaga mar walba ka shaqeysa raalgelin buuxdo aniga iyaga wakiil uga ah aan raalgelin buuxdo ku siinayna wallahi mu kula qurux badneen baraada ina aniga isoo tiraahdid way war waydaada aniga waxa miiga bedelayso baraada waydaada waxa miiga bedelayso ma fahanti laakiin qofku wanaagsan waxa la yiraahdaa marka wax loo sheego waa in uu wanaaga qaataa ama uu macnaha yiraahdaa saani waxa waaye way qaldaneed sidan qofka walaalka ii sheeg qof ku jecel walaalka ah ama maxaa la yiraahdaa wax ku sheego marka ma ahan anna macnaha muuqaalkan hadda waxaan u soo fadhiistay in aan idin sheego aan marqaatin idin kaga dhigo dadkii xalay muuqaalkayga daawaday share gareeyay like iyo comment iyo quruxda badan isku soo dhiibtay ma wax qaldan baan ku hadlay dad waxa tihiin dad gar yaqaanaa tihiin ma wax qaldan baan ku hadlay aniga oo ma dad baan ku gafay ma dad baan caayay mise runtaan ka hadlay iyo wanaagan ka hadlo kaliya intaas kaliya bis xawaaye isoo kala sheega hadii aan dad ku gafay waxaad tiraahdeen dad baad ku gaftay waad qaldan tahay wad dhaqan xun tahay dadka faraha ka qaad ha ka hadlin barnaamijkaas oo kale hadii aan dad ku gafinne taa walaaw macnaha aan qofkaas kale aan telefoonka soo caama si caadi gooni ila soo hadlaa waxba igama galin ba horta wuxuu ay qaadaan inta maanta ilaahay abuurtay ma jirto waana dad caan ah oo la yaqaano oo macnaha waxa waaye bulshada magac ku leh ma fahanti hora loo yiri waxa waaye run sheeg waa ceeb sheeg runta hada sheegtid ama wanaag dadka u sheegtid waxa waaye ceeb sheega noqonay balaa sheega noqonay ani ceeb sheegna mi balaa sheegna mihi wanaagu kaliya maxaa la yiraahdaa aan dadkan u sheegay ama aan faray wanaagana maxaa war ilaahan idinku dhaarshiye qofka maanta sheekh Kenyawi ilaahay qiraasiye yiri alfanaan Kenyawi intuu muuqaal yar dul saaray u yiri rap dul saaray alfanaan Kenyawi yiri ilaahan kugu dhaarshiye qofkaas ka hor ilaahan kugu dhaarshiye qofkan waxaan been ka sheegay ilaahay u naxariistay marxuumka ajakis oo Soomaalida inta badan maanta sharafta leh yiraahdaan xitaa aab ixtiraam meel ka gaareen aab yiraahdaan aab ajakis yiraahdo dadkii aniga maanta isoo dhintay oo teetalka xun ama waxyaabaha qoraalka xun ka soo sheegay ama beenta ka sheegay ku gafay ma wax qaldana ka sheegani ma gabdhahaas sharafta leh oo maanta baara iyo gabadhan kale ay qaar u qabo waxa maxaliyada aan ka hadlay ma wax qaldana macna inaan iraahdo gabdhaha waa ku gafteeni faraha ka qaada waxa soo kalena challenge ha ku ciyaarina faraha ka qaada markaan leeyahay ma wax ilaahay idinku dhaarsho idinkaan idin weydiiyay aniga aan been ku sheegayba mise waa wax qaldan aan ku hadlay dadka hadaba qaar inaysan xisaabtamin ku sheegaa aysan xisaabtan wax la yiraahdo in aysan lahayn sababtoo ah runta dhibaysaba ma fahanti runta ku dhintay adeeg ku dhibtay brotherkii aan waxay gamaysan galin still waxa taa walaalkay tahay jacayl ku qabana waaye marka ku leeyahay ani adiga maxaa la yiraahdaa faraha ka qaad ka waanto xumaantan ma fahanti dad badan oo la caaysin oo waxa waaye maxaa la yiraahdaa mid kale ayuu Carlo mid ku sheegay brother qof shakhsi haduu wax kala dhaxeeyo ama xurguf kala aamus laakiin inaad aflagaadiiso aad live ku aflagaadiiso aad maxaa la yiraahdaa si kale niyo brother ana xumaana kuma qabin walaalkay tahay laakiin please brother qaladkii hore u gashay binaadana tahay uu ka dhici kara qalad uu ka dhici kara laakiin waxa qurux badan dadka markuu qaladka ka dhaco in ay ka suugaantuwaan ama ay yiraahdaan qaladka suuga dhacay shaydaan korkiisa Allah ka yaal qofka binaadam qof aan qalad ka dhici karin aniga dhaca adu ka dhaca qof walba ka dhaca
sheekhu ka dhacaa qofkuusa ka dhacayni male qalad buu dhacaa hase ahaatee qofka qaladka markuu dhaco shaydaan u nasbiyeel oo dheh maxaa la yidhahdaa shaydaan korkiisa allah ka yeelo marka biliis asxaabta qaaliga waa aada u mahadsantihiin muuqaalkan waxaan ugu talagalay intaasuu ahaa macnaha in macnaha aniga aad la isoo wacay way aad runta u sheegtay way aad maxaa la yidhahdaa aad anaga meesha rabnaa ka bariisaynaynaa marxuuma sheegayey sheekhaa sheegayey war waxaa rabnaa ka bariisaynaynaa saas darteeda waaye maxaa la yidhahdaa aadna waa u mahadsantihiin dadka quruxda badan ee hadda igu soo biiray maxaa la yidhahdaa dadkii hore ila joogay dadka hadda igu soo biirayana welcome aan leeyahay sida quruxda badan please muuqaalka like ka iloobin share ka iloobin commentigana fikradaada commentigaas waa sugaa aniga waan sugayaa commentigaas oo had inta jeero inta su'aalan ku weydiiyay haddaan qaldanahay waad qaldantahay haddaanan qaldanayna macnaha commentiga igu soo qoray maxaa la yidhaahdaa dadka saas dhahayana maaha dad social media aan ku jirin waa dad caan ah please muuqaalkan like saar muuqaalka viewskiisa wuu badnaa laakiin like-tiisa yar please like-ta inta qof markaa iska soo geshid like-taas sababtoo ah dadka xumaantooda oo dhan ay gaarayba dadka xumaantooda aan fariinta u dirayno ee gaaray haddii aad like-garaysid haddii aad usii share-garaysidna wayba kasii qurux badan tahayba asxaabta qaaliga meeshaasaa muuqaalka kusoo gabagabeynayna waa anigoo Mami Boy youtube daawanaysid waa Mami Boy isku soo noqod wanaagsan anagoo waliba xiise iyo xamaasad gooni ah idin qabo aan idin rajeynaa insha Allah waxaan idinka tagay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bye bye